wixii dhacay ka shalay mayno iskuna canaanan mayno qadar eebbe ayay ahayd duruufahaas kala duwan ee la soo maray waxaana hor yaallaa hadda waa mustaqbalka oo u baahan meeshii in laga ambaqaado oo bulshada Soomaaliyeed wixii ay ka sugaysay mas'uuliyiintooda inay helaan waxaad ogtihiin waxay ku soo aaday sanad guurada tani xilli duruufihii jiray ay ugu darsoomeen abaar baahsan oo geyga Soomaaliyeed iyo geeska Afrika waa cabsi looga qabo meelaha qaarkoodna ay gaartay marxalad macaluul ah waxaa runtii arrintaas dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan halka uga dirayaa baaq inay u istaagaan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira ee dhaqaalaha haysta sidii u gargaar lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo badankiisa hantidoodii ay halis ku jirto boqolkiiba 70 bulshadeenu waa reer miyi haddaysan ka badnayn ama 80 ahayn waxay ku tiirsanaayeen waa xoolaha nool hadday abaari dhacdo waxaa soo gaaraya dad badan oo hantiilayaal ahaa oo xoolo haystay ayaa maanta waxay qarka u saaran yihiin inay cayr noqdaan oo ay suuragal ahayn inay ubadkoodii iyo qoysaskoodii ay quudiyaan waxaa kaloo iyadana intii magaalooyinka jooga halis ku haysta maxaa yeelay dhaqaalaha inta magaalada joogta iyo dawladuhuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahaas nool iyo dhaqaalaha ka soo gala dhoofkiisa oo dad aad u fara badan oo kala duwan ay ka manaafacaadsadaan midka dhaqda keliya duruufta ma haysato kii iibsaday jiray kii dhoofin jiray kii ka sii ganacsan jiray kii gaariga ku qaadi jiray dawladdii ka heli jirtay canshuurta oo ciidamada iyo amniga ku ilaalin jirtay intaasoo dhanba saamaynta abaartu waa ay gaaraysaa waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta dawladda ee dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan bulshadaba ay arrintaas iska kaalmaystaan oo ay dhinaca iska dhigaan duruufaha mararka qaarkood ka mashquuliya u adeega bulshadooda dawladda Puntland iyada oo mabaadiida dawladnimo iyo aasaaska ah in bulshada loo adeega ka duulaysa waxa ay xoogga saari doontaa sidii ay bulshada uga qayb qaadan lahayd intii karaankeeda ah inay u adeegto oo ay weliba arrimaha abaaraha ayaamahan xoogga ay saarto guddiyo abaara ayaa la saaray xooga ayaa la ururiyey xooga aanan runtii hordhaca oo runtii muujinaya khatar ayaa soo baxaya waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis markaan iskaalmaysanno oo bulshada inteeda kaleetana la wadaagno inaan ka gudbi doono marxalado kuwaan oo kale iyo kuwa ka daranba wayna soo mareen waxaan rajaynayaa isku duubnida iyo midnimada in looga gudbo waxaan sidoo kaleeto dawladda Puntland ay caddaynaysaa inay dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka ah iyo cid walba iyo dawladaha jaarka aba inay la shaqayn doonto sidii abaarahaas looga gudbi lahaa waxaad ogtihiin xoolaheenni waxay u gudbeen xuduudda ayay ka gudbeen Ethiopia ayay ku jiraan reserve area jiraan waxay u gudbayaan maamulada kaleeto waxay ka soo gudbayaan maamulada kaleeto maamulo kale imaanaya hadday abaari timaado waxaa la rabaa in la isla kaalmaysto maxaa yeelay waa arrimo bini'aadanimo oo laga wada shaqeeyo waxaan sidoo kaleeto ka codsanayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed haddii markuu baadka iyo biyuhu yaraado waxaa abuurma khilaafaad waxaa dhici karta in isqoonsi dhaco in lagu dagaalamo baadka iyo biyaha yar waxaan rajaynayaa iyadana colaadaha ka dhasha dhibaatooyinku markay jiraan iyagana in laga waantoobo oo midnimada iyo wadajirka iyo wanaagga laga shaqeeyo waxaan u hambaleynayaa dhammaan cid walba oo Soomaali ah meel kasta ay joogto waxaan runtii ilaahay ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo deganaan iyo calanka buluugan oo ilmada laga tiro oo dawlad adag oo mustaqbalka ummaddan ka shaqeysa ummaddan ilaahay inuu siiyo waxaan ku boorinayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay iska kaalmaystaan sidii ummadda loogu adeegi lahaa waxaan u hambaleynayaa dawladda ka dhalatay magaalada Muqdisho oo federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay xilkooda ku asturo oo ay noqdaan kuwa u adeega bulshadooda waxaanan caddaynaynaa haddaan reer Puntland nahay dawlad ahaan iyo shacabba inaan qayb ka qaadan doono yagleelidda dawladda federaalka ah
la dhaqanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo dhammaan u adeegidda bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo haddii aanu dhaanno dhinaca baadka iyo biyaha u soo guura deegaanadeena inay nabad u soo degaan waxaan kaloo iyagana ka codsanaynaa haddii dadka reer Puntland ay tagaan deegaano kaleeto ay kula noolaadaan si nabad ah oo deganaan ah oo ay wada jirka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay wada ilaaliyaan aad iyo aad baad u baahsantihiin maanta khudbad badan kumaanan talagelin hambalyo weeye waxaan si gaar ugu hambalyeynayaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee dhaliyay xorriyadda una taagan ilaalinta difaaca iyo dadka haddana ku jira buuraha iyo deegaanada adag ee ka ilaalinaya cadowga gudaha waxaad ogtihiin Soomaaliya maanta waxa haysta waa cadow gudaha ka jira oo xag jir ah arrintaas ayaa ka xoog badatay ilaalintii xuduudaha maxaa yeelay badeennii iyo berigeennii iyo xuduudaheeniiba waa bayla dowladda Soomaaliyeed waxaa la rajaynaynaa inay ku filnaato laakiin marka ugu horeysa waa inay cadowga gudaha ee dhexdeeda jooga tabteeda yaqaana inay meel uga soo wada jeesato guul baan ii rajaynayaa horumar baan ii rajaynayaa ciidamadana si gaar ayaan u salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu